Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkaad naga daawaneysaan waa YouTube channelka Xamsuuni Hena. Magacaygu waa Xabsa. Kusoo dhawaada sidaan sameysaneyno dooshada si fudud insha Allah. Halkan waxaa ka diyaar ah sokor, bakin, ukun, caano iyo saliid iyo heel. Hadda waxaan fajiyay xabad ukun ah, xabadii labaad, midii saddexaad, mid afraadna waan ku daraa insha Allah. Ukumanku waa 4. Koobka wiilka waxaa ku jiro sokor ku jirtay, waxaan u geeyay 4 xabo ukun ah. Kadib waxaan sameynaa waa isku qasaa 4 ukun si aysan kuuskuus u noqonin. Haddana waxaan ku darayaa koobka saliida insha Allah. Kadib waxaan ku sii darayaa koobka caanaha insha Allah. Caanaha wuxuu noogu jiraa galaas. Waxaan sameynaa wax yaraan ka reebaa galaaska dhan kuma darayo insha Allah. Markaad waxaan sameynaa intaan ayaan si fiican isku dhexgelinaa sokorta markay si fiican u dhilaasho. Kadib waxaan ku darayaa bakin iyo heel. Kadib haddana waan sii ilaalinayaa. Markaas waxaan ku sii darayaa bur. Hadda saa u jeedaan waxaan ku daray bakin insha Allah. Saabay bakin badan ma fiicno. Bakinta badan dadka aad waxay u jecel yihiin fuurka dooshada zaad u fuursan bakinta ku badanaa, laakiin dooshadaas waa mid qaraar ah. Gadaal ayay qaraar ka tahay, waxaana keenayaa bakinta oo zaad loo badiyo. Marka waxaa fiican in bakinta iska qiyaasto insha Allah. Marka waa 2 qaando. Markaad bakinta arkayseen waa 2 qaando ka badan hadii waa ku daraa istiraadid waxay ku noqonaysaa mid qaraar ah dooshadaada. Marka si macaan ay ku noqoto doosho fiican ay ku noqoto waxaan sameynaa qiyaas bakinta insha Allah. Saabay haddana waxaan ku darsanayaa heel aan soo garaacay insha Allah. Heelka uu carfinayaa dooshada masha Allah, carf oo kaliya doosho aad u caraf badan ayuu soo saarayaa. Intaan ayaan si fiican isku sii dhexgelinayaa. Markii aad isku milmaan sokorta ay dhilaasho bakintan iyo ukuntii wax dhan aan jijibiyo ayaa waxaan ku soo darsanayaa burka. Oo jiidan saabay sidoo ku soo baxay masha Allah. Isku soo dhilaasho qurux ayuu noqday. Waxaa rabaa marka hadda inaan ku daro burka. Markaan burka aan ku soo darayo marka qaandada sidaan ma loo sii qasi karo. Waxaan sameynaa saabay markaas kadib gacanta nadiif ka dhigaa gacanta aan dhexgelinaa si aan u garaaco insha Allah. Qaandada ma loo garaaci karo. Markana saabay burkii aan ku soo darsaday. Hadda waxaan sameynaa gacanta la galayaa qaandada meel aan iska dhigayaa insha Allah. Sidaas oo la socda gacanta iska soo nadiifi. Markaan aad gacanta iska soo nadiifina insha Allah. Markaas saabay si fiican ayaan u qasayaa insha Allah. Halkaas sidaas ayaa rabaa inuu qasto. Saabay kaamirada isbiida ku furan insha Allah. Saas oo la socda. Please haddaad ku cusub tahay subscribe isaar. Haddaad hore inoo joogtayna like iyo share comment. Waa dhiirigelin xageena insha Allah. Masha Allah saabay waxaad si raadinayay kuskus ugu jiro oo kale. Malaro kuskus inuu ka soo baxo. Masha Allah dooshada kala afka burka dhinacyuu ka maraya. Marka insha Allah saabay waa kana birtii ayaan soo diyaariyay kisbur iyo saliidaan ku daray. Burka birta kale ugu dhigaysa waxaan sameynaa birka geesihiisa oo dhan kor ilaa hoos marinaa burkii saliida si dooshada birta aysan ugu dhigin hadhowdii insha Allah. Si fudud ay u soo baxdo insha Allah. Quraxna way ka dhigaysaa oo gaduud ah. Markaasaan u mariyo geesaha dhan aan ka mariyo burkii aan soo qasay aan ku qiyaasana. Asxaabay inta hadda bur aan soo qasay ujeeda waa nus kiilo bur ah iyo nus kiilo sokor ah. Marka waxaan rabaa birta maadaama bir yar ay tahay waxaan ka dhigayaa 2 xabo oo doosho aan ka dhigayaa insha Allah. Waana arki doontaan mideed kalena dooshada sideedaba haddii cabirka uu ka khaldan yahay way ka halaabaysaa insha Allah. Waxaa la rabaa sokorta iyo burka jin iyo jin. Tusaale ahaan haddii ruwac uu yahay sokortu burku waa inuu ahaadaa ruwac. Haddii uu yahay nus kiilo waa inuu nus kiilo yahay.
maasha allah asxaabi markaan dabka gelinay waa kan sidaan oo noogu soo baxay labadii xabo doosho aan kasoo dhignay maasha allah qurux ayuu noo noqday wabilaahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.